آله وأصحابه ومن صار بنهجه إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. عشر كياقي أفراد مسشناد ويه يعني سوّني إنه كجهل لأن التاريخ ذا ضدك الصومالية جيسك أفريقيا كنول انتهينا 10 كجلين هل وحبة أنا دي حسوسنا يا شيخي هذا التجيي إلهي دنبجي سهاد في آياته النجود تجيي وآياته إنه تلمام يا هيانك إنه قصعنا هدانو نهاي آدمي جبيان ويا آياتها قرآن كوحن نرسيد وضي وحيوهن حرر وحول بقى قرآن كهاللينا ولا أركيا وح قدام بيا وأنه أركينا وحويه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين آمنوا إلى الجنة زمرا أين الله تتاكوهين تاريخهن أين آخرين أما أين بارين أما أين برانين وواجب ديني يوي واجب ديني قرآن كوحن نغش كينا يا تاريخ ذا مالنتي يجوه الرئيسي آدمي جواه مالنتي آدم لأومي يحفلات دي دماشات كماشا كدعي ويكمل هيد ملائكتي سجود ليه وحن نغش كينا يا مالنتي قبل بيسو تاريخ ذا آدمي جودول كان كله يهيوه مالنتي بونك قيام الله يرني وحي انت كسهري وآلد أنو نرش أو كاشنين تاريخها أينو برانينا ما هو سيدي راشين كأنو عنين أما أنجبك قشنين أما أنسكو قرحين كرو شاتعانا أنو اللي بسنين وتجارب دادك نجاه الرئي أي صومرين ولو بهاي هاي إلا الدراسية لقى عبرات غاتو أما فعل كمان تا يجو وحوي تلك أمة قد خلت أو ياشا أنو كشكينا وايد انتن كوا كلو أينا كشكين أما أيام تاريخ ذا حسين أما أي حستي وأن جاري ويني إن أنا ما ركتي صوب النجنو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت أحد كحسابنا يا صح يا خلد وحي لها يا وإلهي ما ها النجا ولكم ما كسبتم النجا وحنا لكربا بالرواقة مركو بريو كي وحبرنا يي كي شقي سنة يي كي جناع سجل يي كي جرسنا يي واجب كيوجا كاوي ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون انت هردعبان أوليهاي waxa kale aan raacsanaya iyadana taariikhda aynu ka waramayna maaha macnaheedu inaan wax walba soo bandhigin dulmar baan ku sameeyna hal mowduuc oo kamida muwaadicdan aynu ka hadlayna jaamacadaha lagu bartaa fuxuus baa lagu sameeyaa rag baa ku mushahar qaata in ay faxsi ku sameeyaan oo ka daba tagaan oo intii la heli karo ay soo ururiyaan bani'aadamka cilmigiisa waa iska kooban yahay ilaahay baa cilmi waasic leh intii marka ay dadaali karaan ay soo ururin karaan inay soo ururiyaan taariikhaas fog oo aan ka soo bilownay waxaan rabay inaan ku daro dadka Soomaalida ah dad meel kale ka yimi maaha deegaanka waxay yimaadeen 200 sano 200 oo sano horteed bay yimaadeen hijrada iyada dadka taariikhda daba gala waa ay soo bandhigeen oo raadka waa ay cadeeyeen meeshii ka yimaadeen iyo ilaa xeebaha waqooyi badda cas inay hirkoodii iyo hayaankoodii ay soo celisay kadib dib bay u soo laabteen waxaanu arkaynaa Axmed Gurey mesela qabaa'ilka uu dhambaalada u diraayo reerka hartiga kamida xagee bay fadhiyaan markaas xiis bay fadhiyaan xiis maanta isaaq baa degan marka hayaankii sida u baxay oo waqooyiga xeebta maray dib buu haddana u soo noqday وأرادت لها دفعتي وجسه الرئيسي أو الصومالي ماشى تمادا وضد كان لهيب صاعه ويكسه الرئيين دفعة اللباد الصومالي ده كله ودفعة اللباد الصومالي ده هراء أتمد ضد فرسما يقانا أبي هاين لقب بلابا بورها جولس حدود بربراء كسب بالوضان إلا إيو بري hoostooda 9 degmo oo waaweyn baa laga helay oo dadkii deganaa ay warshado sameyn jireen birihii ay wax ku tuman jireen baa la helay walow si fiican aan loo baarin laakiin raadkii waa la helay 9 degmo yaa halkaas laga helay erayada marka dadka iyaga lagu magacaabo tumaal waa raad muuqda inay bir tumi jireen
midgaan madag bay ka timid dharkii la qaadan jiray waxay ka shaqayn jireen muxuu ahaa painting waxaan midabyada wax lagu dhayo ma garatay dufcadaas hore waa dufcadii timid dufcadan geelaydoo gadaal ka timid baa burburisay ilbaxnimadoodii iyo xadaaradoodii sida maantaba xamar ay u burburiyeen markaan u tagnay dadkii cadcaddaa ee aqaliyaadka ahaa dadkeena geelayda oo dufcaad iska daba yimid markaan u tagnay waxoodii dhulkaan dhignay waa baabi'inay soo ma sidaasoo kale aanu u baabi'inay dadkii geelayda ahaa oo ahaa dufcadii labaad haybsoocu marka ma aha qabiil qof haybsooca haddaad aragtid waa qof ama heer qabiil ha ku soco ama heer qof ha ku soco ama heer qaran ha ku soco ama heer aadami ha ku soce waa siyaasadii fircoon oo ilaahay uu inooga digay fircoon bolisigiisii muxuu ahaa ina fircawna calaa fi lard wa jacala ahlahaa shiyacan sida qofku uu baawar u leeyahay buu dhib ugu geysanayaa marka isagoo qof caadiya ma ahayn baawar amiir buu ahaa boqor buu ahaa marka adoo shaksiya aada haybsoco ku dhaqantid dee wax weyn dhimi maysid qofkan haybsociis waa adoo kale waxba ka qaadi maysid inaad uurka ka bugto maaragtay aada u haysatid inuu kaa hooseeyo taana waa jiro qofka ku eg laakiin qofkii markuu xukun hayo mas-uul yahay uu ku dhaqmo haybsooc waa bolisigii fircoon waana bolisiga dictator kasta ee taariikhda soo maray ilaahayna subxaana wa tacaala siyaasadda caynkaasa fircoon buu mathaal inooga dhigay cid kastoo siyaasadda ka xumaato fircoon baa u mathaala cid kastoo hanaanka dhaqaale uu ka xumaado ummaddii shucayb baa u mathaala cid kastoo hanaanka dhaqan uu ka xumaado ummaddii luud baa u mathaala cid kastoo ay caqiidadu ka xumaatana quraysh baa u mathaala sidaasuu qur-aanku inoogu caddaynaya in la fekero in baxhi la sameeyo sida salaada waajib noogu tahay bay noogu tahay qumuu lilaahi mathna wa furaada maxaa ku xiga uma tatafakaru waa amar dabadeed fekera idinkoo midmida iyo idinkoo labalaba ah ma fekeraa ma jiraa laba qof oo tashata oo dhahda ina mari fekere ma jiraan taasaa marka waxay keenaysaa jahligan gaamuray ee qof soomaali kula ah kula diina kaa taqwo badan adduun haddii wax lagu qiimeeya kaa hanti badan kaa qurxoon ya ayax dhowre muxuu yidhi waa taariikhdeenni waa dhaqankeenni waa hiddaheenni waa inaanu ka sheekayna ayax dhowre weliba wiiloo adeeru yahaa khaladka bilaabay khaladka laguma bilaabay wiiloo adeeru yahaa wuxuu qashay soomaalidu waa caraabi sac uu leeyahay nin reer khalafoo la dhaho yuusuf dhoox odaygii waa uu ka carooday arrintii gar baa la galay wuxuu yidhi hal geela maahe wax kale ku samri maayo ayax dhowre wuxuu yidhi nagama kaa qabato arrinta sac baanu kaa qalanay sac baanu ku siinaynaa waa uu diiday okay hashii buu bixiyey laakiin sheeko taariikhda gashay oo soomaali hadday caqliga usoo noqdo aanu noqono bani aadan ilaa hadda bani aadankii waa ka hooseynay naag b b c da islaan laga wareysanayaa waxay tiri waxaa igu daray lug bani aadan leeyahay waxaa aragtay maxaa ugu daraa baa la yidhi dagaalka sokeeya lug bani aadan leeyahay oo yaa ku dirirayay tiri laba maxay ahaayeen laba eymeter laba dameer laba eyna halkaasay taagan yihiin waa fiirsanaya mukulaalo kooxana halkaasay taagan yihiin lugtaa luflufkii ka soo hara bay sugayaan yani dadka ummaddaas bani aadan lama dhihi karo walow qaab bani aadan ay leeyihiin marka waa dad soomaali matalaya waa annagii wey cidna ku eedeen mayno waa annagii ayax dhowre gabay buu markaa tiriyey oo uu leeyahay reerkiisii oo dhan buu yidhi horta waa ka guuraynaa meesha tan nala ku ihaanaysto waana min addiin qofka meesha uu mustadcaf ku noqdo inuusan iska fadhin waayo haddaad iska fadhidid adoo mustadcafa ilmaha aada dhashay waxay qaadanayaan vishinka ay nolosha ka qaadanayaan waa aabbahooda mustadcafa ilmahaas weligood isxorayn mayaan sababtoo ah
waxay ku barbaarayaan oday liita oo miskiina oo gabadha hoos u roga oo laga adag yahay bay ku barbaarayaan laakiin markaa qaxdid markaa diridid aad iska celisid ninkan ku ahaanaysanaya waa laga xog badnaan karaa laakiin wiilkaagii halgankaasu sii wadaya aabihiisoo rafanaya hadduu arko wiilkii isagana waa diidaya maaragtay in la hoggaansado dhaqankii soomaalidaasa ahaa ayax dhowre reerkii oo dhan buu raray wuxuu yidhi waa guuraynaa odayaashii buu shiriyey jifidii ay isqabteen gabay qurux badan buu ka tegay ninkaas xilligaa noolaa ee qab dhaafay yaa laba qabiil qaranku weydaarta qaranku waa laba qabiiloo isu tegay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila qoysaska isu taga qabiil bay noqdaan qabiil kale markii loo geeyana shacab buu noqdaa waa ummad labadii qabiil hadday marka isquursadaan qaran ma la noqonaya may qab dhaafay yaa laba qabiil qaranku weydaarta adiga gabay dheer buu ahaa waxaan ka xasuustaa wuxuu leeyahay qabkaad mudug la joogtaan reer mudug raalli ahaada qabkaad mudug la joogtaan rag way isku qatalmaysaane qooraha waxaa rag looga simay qayr inuu yahay nin saddex kuluc wata ma jiro nin walba laba kuluc oo nin ku yahay qooraha waxaa rag looga simay qayr inuu yahay qabaadiya haddaad iga rabtaan ii qasaal marada qabiltiya nikaax naagaha qaata meherkiiye qadar eebbahay iguma qaban qoriya xeeshay qayaad iyo bahar sama horaad isugu qoonteene hablihiina nimankii qabay yaad kala qatowdeen adig gabay qurux badan weeyo sugaanta soomaalida ku sugan waa uu guuray ninkaas gabaygiisi waxaa ku jiray haddaan qoonka reer diiniya u tago qaali baan noqon sidaad ila dhaqmaysan la ila dhaqmi maayo markuu reer diine ag marayay baa wiilashii waxay dhaheen adeer ma furaa reerka wuxuu yidhi ha furine horta ceelka taga hadday yidhaahdaan ayax dhowraa marayay meeshaan odayaashoodii ku sheekeeyaan reerka waa furaynaa buu yidhi laakiin hadday dhahaan yibrihii baa maraya meeshaan furi mayno wiilashii odayaashii bay xansadeen waxay maqleen odayaashii oo dhahaya yibrihii baa meeshaan maray waa soconaynaa buu yidhi maxaa ka dambeeyey meeshii uu ka soo qaxay odayaashoodii shir bay qabteen cigaal caymo oday laho odayaashii deegaanka ka mid ahaa nin caqli badan xigmad badana tolkii buu shiriyey wuxuu yidhi ayax teg eelna reeb ayax teg mahmaada ninkaasaa bixiyey ayax waa ayax dhowre eeshuna waa ukumaha yaryar oo ayaxu uu dhalo wax ka shida badan dhulka caws ku hari maayo ciiddee faganaya iniinkii abuurkaabay soo saaraya in wuxuu ka dhigayaa marka gabaygii ayaxuu ka tegay wuxuu yidhi ha la soo celiyo reer ka maarmi karaa ma jiro sida bii-adda isugu qafilan tahay oo haddii qayb bii-adda ka mida la hadleeyo wixii khalal oo zoonkiibaa hallaabay baad maqlaysaa waa meel yaroo dilaacsantay adduunka oo dhan waa dhawaaqaya sababtoo ah bii-addu waa isku qoofalantahay walaa tufsidu larda bacda islaaxiha ilaahay baa hagaajiyay haddii meel khalal ka yimaado cimiladana khalal baa ku imaanay mujtamacna saa camal wey waa isku qoofalan yahay haddii khalal ku yimaado khalalkii waa ballaaran waa in laga hortagaa la daweeya ayax erguu u diray adiga galgaduud shadeedu uga daba tegay odayaal uga daba tageen adiga xujooyin buu hordhigay waxaan laabanayaa markii saas iyo saas haddii samaysaan kulli intuu codsaday waa loo sameeyey sidii buu ku laabtay ayax dhowre intaas waxaan kaga baxayaa sheekadaa dheer oo bilowgiina sidaa ahayd say ku dhammaatayna sidaa ahayd dadka soomaaliyeed waa dad islaam ah waa dad haybsiman waa dad la wareeriyey qabiilkan runtii intaan soke waa laga yaabaa inay wax ka jiraan laakiin inta shishe hal qisaan idiin sheegayaa afar reer oo soomaaliyoo la yaqaan yaa reer walba markuu abtirsado nin buu gelaya reerkaas soo ma ahayn inay walaalo ahaadaan ninku maaha afar nin oo isku magaca maaha waa hal nin wey aw cismaan aanu ka soo qaadno
oo la yaqaan okay oo cusmaan markii laga tago soo hal aabe ma jiro ya mise dhowr aabe jira hal aabe abtirsiyo inuu caadi u socday markii aadna aad inta ka soo gasho anna aan inta ka galo hebelno inta ka yimaado reerkan abtirsiyo gaar ay yeelanayo anna abtirsiyo gaar aan yeelan reerkan abtirsiyo gaar ay yeelan qabaa'il Soomaali kamid ah haba hadda ku dheeraan mayno waayo cilmiga qabaa'ilka meeshan kuma hayna waxaan ku haynaa taariikhdeennii baan marka u noqonaynaa taariikhdu waxay noo maraysay dabayaaqadii 1800 qarnigii 19aad maxaa qarnigii 19aad 1800 loo dhahaa ma la dhaho 1900 su'aalaan idin weydiinayo way qarnigii 19aad waa 1800 ilaa 1899 Soma this qarnigii 19th century waa 18th kii xagee iska khilaafsan yihiin marka yaa qarnigii koowaad exact qarnigii koowaad nabi ciise markuu dhashay sanadihii marka lama gaarin markuu dhashaa laga bilaabay koowaad wuxuu xirmayaa markii 99 ay tahay labo waxa bilaabanaya qarnigii labaad waa sax qarnigii 19aad waa 1800 ilaa 1899 dabayaaqadeedii kanaalkii baa la furay waa ka soo sheekeynay shirkii Berlin baa bilowmay waa lagu heshiiyay qaybsiga Afrika scramble of Africa ka sheekeynaya Soomaaliya qaybaheedii rag baa qaatay ragga iyaga horena waa u joogeen sahamadoodii daraasaad badan bay ka heleen kadibna qabaa'ilkii in loo yimaado heshiisyo lala dhigto bay noqotay 1886 ilaa iyo 9aadkii heshiisyadaas si waalan u socday heshiisyadaas reer aan lala dhigan ma jiro waxaan laga dhigan kaliya meeshii daraawishta ay ka coratay reerihii deganaa oo iyaga gudahay ku jireen xilligii la soo gaari lahaa dagaal baa bilowday waxaan kaloo lala dhigan qabaa'ilkii galbeedka deganaa iyagana boob baaba ku socdo Menelik heshiis uma uusan baahnayn xoog buu rabay inuu wax ku qabsado Rasmo Konnen iyo Fitawareeri Mangasho iyo generaaladaas buu ku soo daayay ciidamo xoog la wata de boob iyo xoog bay dalka ku qabsanayeen heshiisyadii qabaa'ilku ay galeen say u dhan yihiin waxaad ka helaysaan buuga la dhaho The Scramble of Somalia heshiisyadii reer kasta ay galeen qabaa'ilku waa isleedayaan wallahi reebel heshiis bay galeen maaragtay gaaladii la galeen oo idinkaba la gashay xeebta ka soo bilow min qabiilka Ciisaha ilaa Tunnida kugi heshiiskuna 5 qodob buu ka wada koobnaa wax kooban buu ahaa in dul maamul ay ogolaadaan in ganacsiga ay ogolaadaan in maaragtay dadka cadaanka ee u dhashay iyaga dalka ay amaan ku helaan in haddii alla kuuran yahay cid kale ayaan heshiis la gelin cid kalena ayaan u ogolaan dhulkooda kaasoo kooban qodobadaas uu nuxurka ah kala duwanaado qaabkii laakiin nuxurka intaas waa dabadeed waxaa dhacday koonfurta dagaalkii biyamaalka ugu horeeyay wax sameeya dhaqdhaqaaq waa la muquuniyay runtii madaafiic baa loo yimid beeralay bay ahaayeen beerihii baa laga wada gubay aad baa dadka dhaawac loo gaarsiiyay qarnigii marka wuxuu bilowday iyada oo Soomaalidu ay la ildaran yihiin boobkii ku socday laakiin siday u daraayeen uma ayan aayaxumeen waxa dhacday taariikhdii daraawishta oo aan caawa wax yar ku dheeraanayno taariikhda dhaqdhaqaaqaasi dhaqdhaqaaq diiniya buu ahaa oo xira weligeed dalka iyo dadka waxa wax u ahaa dadka ehludiinka Sheikh Hassan Barsane nin sheekh oo xir wato ahaa Sheikh Bashiir nin sheekh oo xir wato ahaa haddii alla ku ron yahay dagaalkan biyamaalka niman culimo ay ahaayeen dadka hogaaminayay Sayyid Maxamed Cabdullah Xasan nin sheekh oo xir wato ahaa Sheikh Madar nin sheekh oo xir wato ahaa adigu xirtaas weeye waxa maaragtay qofka kaliya wax fahmayo wax arkaya sida ilaa maanta ay u tahay ninka diinta le inuu yahay ninka wax arkaya wixii kala qaadiyo mooryaannimo iyo waxa wareeriyay isha waayo diintu waa nuur waxay ku kala tusaysaa wixii sax ahaa iyo wixii khaladka ahaa dhaqdhaqaaqaasi wuxuu ka bilowday
waxaa curiyey oo hal abuurkeeda lahaa runtii cilmiga falsafada waxyaabaha uu ka hadlo waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyada ma shacabka xoogga mudnaanta ah leh mase ninka hal abuurka leh baa xoogga iyo mudnaanta leh aad baa maaragtay arrintaa looga doodaa laakiin percentager waxaa la siiyaa ninka percentager waayo hadduusan cunsur lagu hirto dadkii ururiya uusan jirin haddee dadku isuma yimaado annaguna soomaaliduna maanta taasay laadahay waana adag tahay in la helo inta khaanadaha lagu kala jiro ma dhici kardho cunsur dhexe in la helo inta dabarka dadka ku xiran maaragtay la jarjarayo waana aanu arki doonaa maxamed cabdulla xasan nin ogaadeenoo bahgeliya wey wuxuu ku dhashay nugaal aabihiis baa sheekh dugsi qur-aan ka ahaa deegaanka hooyadiisna waxay dhulbahanta caligeri qur-aanku xafiday isagoo 13 sano jira kadib fiqhigii deegaanka yiil buu wax ka bartay adigu kun taariikhda sida xusan lama oga goortu xajka aaday laakiin wuxuu soo laabtay 1895 isagoo wuxuu dhashay 1854 buu dhashay waana qiyaas maaha wax sax ah waa qiyaas 54 meelaha qaarna 56 bay dhahaa laakiin taariikhda la hayo dhabta waxa weeye berbere markuu ka soo degay sanadka iyada bilowgeedii ninkaasi markuu ka soo degay berbera kutub badan buu watay cafash badan buu watay wuxuu yimid degmadii waa meeshuu ka dhoofay markiisii hore degmadii oo maamul ka jiro dekadii cashuur baa socota qof kastoo soo degay waa la fatashaya marka wuxuu ogaa meesha iska halaanbeeya doon la iska raaco la iska soo galo wixii kasta la iska qaato wax kasta la soo galo alaabtaada waa badan tahay cashuur bixi baa leeyahay sheekadaas ingiriiskii meesha ka shaqeynayay arkiifkiisii baa laga helay iyadoo qoraal cashuur bixi buu yiri waa loo turjumayaa isagoo af ingiriis ma aqoon maxaan cashuurta u bixinayaa alaab baad wadataa marka ninkan turjumaya wuxuu warka u celinayaa ninkii ingiriiska ahaa wuxuu yiri waxaad ii weydiisaa isagu markuu halkan imanayay cashuur ma laga qaaday ninkii jawaabtii buu ku celiyay intuusan jawaabin ninkii cadaabo wuxuu yiri haddii labadeena mid cashuur bixinayo adaa bixinaya anaana isiinaysaa waayo anaa dhul kale ninkii Soomaaliga ahaa marka wuxuu yiri waa wadaad waalanay naga daa gaalkii buu ku qanciyay in ninkan la iska daayo waayo in la xirayo shido loo geysanayo ogyahay marka isagoo u naxariisanay naga daa waa wadaad waalan magaca wadaadka waalan oo caanka ku yahay halkaas uu kala baxay afashkiisii wixiisii buu qaatay masaajid buu tagay halkaas uu maaragtay wadaadadii u martiyay ninkii sheekh masaajid yimaada dhaqan baa jiray dadku waa marti gelin jireen waa soo dhaweyn jireen wadaadadu marka laba koox bay ahaayeen qaadiriya iyo saalixiya laba madhab baa la kala haystay oo maaragtay si adag baa loo kala taagnaa sheekhu marka sheekh maxamed bin saalix sheekha saalixiyada ahaa buu isagu duruus ka soo qaatay taa macnaheedana waxa weeye ijaaza la soo siiyay ijaazada waxa weeye qofku markuu cilmiga fiqhiga meel ka gaaro oo uu gudbin karo dadka u gudbin karo sheekh noqon karo meel fariisan karo sheekha qiimeynaya markaas uu siinaya ijaaza waa ruqsad oo maaragtay sheekhu iyo diintii ku faafiyo sheekhi dood fara badan baa waxa dhex martay isaga iyo culimadii deegaanka berbera marka waxa kamid ahaa الشيخ عبد الله عروس من الرهو الشيخ إبراهيم حرسي جوليد الشيخ كبير أو عمر الشيخ قاص أحمد هذه علماء داسة كمدها وجامع عمر عيسى بو قيسى سق روح بدن بو إلهي خير هكسي إلهي جميل رحمك هو أبا القدو وايو تاريخ دانو دنبو وحو أقرب بالتفصيل waad la ceeshaysaa buugaas hadaad ay akhrisataan waana idinku waanin af Soomaaliga ku yaal buugii damaad mullah
وقري دوغلاس جوردان إنجليزكي بقى هذا النقدينية وده يا بين باكبوح فعلا بين باكبوح سومالي باهودي بوحو ليه وحو عنايا ميتكي دغنو ملهن dadka Soomaalida inay hatta neef xaraana cunaan baahi kasto haysto waxa ka muuqatay dhahan caro iyo maaragtay nin dagaal ku jira buugu qoro kale laakiin xaqaa'iqda aad bay uga fogtahay ama oo jaamac buugiisa xaqiiq buu ku maaragtay saleeyay sheekhi marka doodii badnay markay dhacday kadib wuxuu bilaabay inuu dadkii wacdiyo وعد جودو دينية واحد عضي مال مالمها كمدا وسوق مقالة الإحمرية مقالة كنيسة باكوتيل كنيسة داس عرور بدن بلجوهي لحدا يدور لحدا يتضبا عيالة بالجوهي سيدا كيف كي لجهلي إنجليز كان لحدا يدور كي عرورتها مد كمدا باكوري مد وحير أدر مقعة جون بوير جون أيو جون عبد الله قلما تاي رير فادر بير فادر وبادر يلقوا أبترسني مساجد كي مركز شيخي وحو بلاوي إنه مساجد هذا كوعد يداتك وكدقه أرنتا يضع دبادر مركو شيخي وعدي بدن قلي وحاو يري غوفرنركي من بو صدر عسكريه نينكي اسغاها والغو عيابو يري وراعي intuu la sii socday alaab culus buu waday oo governorku leeyahay alaabtii buu qaadi waayay dhulku dhigay ila qaad buu yiri adaa oo adawna qaad buu yiri alaabtiisu iska qaatay governorkii baa loo geeyay waa isor fariisteen uu la hadlay wuxuu yiri ma ogtahay inaad halis ku tahay masaalixda boqortooyada Ingiriiska ay deegaanka kaleeda wuxuu yiri anigu taa waa ogahay laakiin nasiib darro adigu ma ogid inaad halis ku tahay masaalixda caruurtayda iyo caruurtooda dad Soomaali ag joogay marka governorka la shaqeeya de hadalkan oo kale ninkan dhagihiisa wali kuma dhicin wuxuu ka baqay dadkan inuu raad ku yeesho doodii dhacaysay ya inay bani aadamku marba maskaxdooda iska xiran tahay marba dhag wax kugu soo duulayaan sax wuxuu yiri mar dambaan isarkaynaa iyo soco hadalkii wuu joojiyay sayidkii waa iska tagay waxa dhacday marka culays fara badan baa la soo saaray magaaladii dibadda uga baxay markuu dibadda ka baxay wuxuu degay meel la dhaho qoryo weyn 1899 bartamaheed halkaasuu marka dad xira reermiyigii inuu waaniyo bilaabay waxa kaloo jiray oo yaab leh xilligaas baadiyaha waxa meereysanaya qoysas tiradooda aanan hadda xasuusan buugan ka akhriyay qoysas Faransiis iyo Hollandees u badan dhalinyaro xaasas isqaba oo geel iyo ari intay gateen baadiyihiisii Soomaalida u dhaqma ceelasha xoolaha waraabsada mudul degan maaragtay noloshii Soomaalida kale marka diinta Kaatooliga ah bay faafinayeen waxyaabahaas dhacayay sayidku waxay siinaysay support markasta oo ka hadlo khudbada akhriyo gacan buu ku helay adigu isagoo meeshii degan baa waxa dhacday 3 nin oo ciidankii Ingiriiska ahaa baa u yimid qoraal loo soo diray bay wadeen 3 nin qoriyay siteen sayidkii bay la fariisteen dhambaalkii waa uu ka qaatay wuxuu yiri nimayo dhageysta waxaad sidataan qoriyo way waxaan idinka codsanaa waxaadna u sidaan nidaam gumaysiya oo dalkiina iyo dadkiina doonaya inuu gumaysto qoryahan ama isiya ama iga gat laba waa diiday nin baa ka gatay ducaale xirsi la yiraahdo ducaale xirsi qorigiisii buu gatay dhowr halaad buu siistay markuu Ingiriiskii u tagayna wuxuu yiri qorigii waa la iga dhacay adigu qoraala la isdhaafsaday sayidka qorigii soo celi iyo diidmo
kadib waxaa dhacday qunsulkii ingiriiska HBM baa la dhihi jiray ee cadan fadhiyey khabarkaas dhaqdhaqaaqaas sayidku sameeyey waraaq buu u diray wasaaradii arrimaha dibadda waraaqdaasna waxaad ka helaysaan buuggii oo jaamaca Umar Ciise iyadoo turjuman wuxuu ka digayaa wadaadka iyo khudbadihiisa wuxuu sheegayaa kaniisadda kaatooliga ee berbera ku taal inay tahay mid dadku ayan dib u arag hadda bilowgii waa u arkeen dib laakiin waa la qabsadeen macnaha badanaa caruurta timaada qaar waxaa ka mid ah aanan aqoon ahayn oo waalidiintu ay inoo keenaan si ciyaalka masruufkoodii culayskaas maaragtay uga haro waraaq dheer weeye intaasaa nuxurkeedu yahay dhammaadkii 1899kii xeradii daraawiishta waxaa joogay 5,000 oo qof caruur iyo xaasas waa ku jireen laakiin markii lagu daro 5,000 oo qof bay ahaayeen daraawiishtii markay bateen waxay u guureen dhanka galbeedka dareema cadde balliga la dhaho bay agdegeen oo buuhodle u dhow halkaasi sheeka ku qabsatay waxaa jiray nin la yiraahdo Firin Qodax Faahiye ninkaasi wiil baa u shaqeyn jiray geela u raaci jiray heshiiskoodu wuxuu ahaa sanad walba inuu geela wax ka siiyo dhowr sano markuu u shaqeynayo yiri waniyahu geelaygii markaasi waa ka tagayay waxba iguma lehid buu yiri adulmi ninkii isaga marka wuxuu sameeyay wuxuu maqlay daraawiishtu fardahay jecel yihiin ninkaana faras qurux badan buu lahaa faraskiisii buu habeen kala soo cararo xeradii daraawiishta la yimid sayidkii buu u keenay daraawiishna waanahay buu yiri dhowr halaad baa la siiyay Firin wuxuu ka daba yimid ninkii xeradii daraawiishtu wuxuu yiri ninkan faraskayga ha layga siiyo waa loo gar qaaday wuxuu yiri ninkan intaas sanaan u shaqeynayay geel buu iga qaba wuxuu yiri war ninku haddii uu geel igu sheeganayo dee faranjigii baa maxkamadii joogay how dacwooday faraskayga haysiyo ninkii u horeeyo daraawish ay dishay ninkaas oo ahaa hadalkaas ay ku dileen dabadeed waxaa dhacday oodweyne iyo burco dhexdeed ay soo degeen meel la dhaho beer dabadeed Sayid Maxamed wuxuu yimid degaankii reer abtigiisa ay ku noolaayeen degaanka isaga ah qabiilka dhulbaante la yiraahdo degan hal garaad baa jiray qabaa'ilku hadda waa si sarrifmayaan wax kasta waanu ka xaalufaynaa dadku waa urursanaa garaad baa jiray garaad cali buu ahaa garaad cali wuxuu dhibsaday ninkan ciidanka inta la eg wata oo xaruntii gobolkii uu ka talinayay dhex degay sayidkii wuxuu bilaabay inuu wada hadal u furo garaadkii si gaar ah wada hadal loo yiri garaadku wuxuu yiri ragayga kama tashado hadaad adigu ragaaga ka tashato aniga ragayga kama tashado waayaheena marayay intuu hor socday buu yiri kabash laysay ereyga garaadka yiri walle aniga adiga nugaal kama wada talin hadalkii isaga ahaa buu garaadkii u dhintay garaadkii waxaa dilay daraawiish waa xujoobay baa loo dilay arrinta iyada markay dhacday waxaa kacay macnaha humaag waxaa kacdoon daraawiishtii ku ah maaragtay opposite dhammaan qabaa'ilkii hartiga ahaa guux baa yimid sayidku nin siyaasiya buu ahaa runtii aad u caqli badan guuxaas hadduu iska dhex fadhiyo shiddaa ku imaan lahayd xertii oo dhan waa u raray nugaal oo dhan waa ka guuray degaankii hartiga oo dhan uu ka baxay wuxuu u tegay galbeed iyo degaankii ugaadeen gaar ahaan reerka la dhaho Maxamed Zubayr haradigeed meesha la dhaho ayuu ku furtay halka iyaga ah waa markas xaruntii waxay ahayd beelaha Maxamed Zubayr waa ay wada fariisteen si fiican bay u wada hadleen nin la dhaho Cabdi Maxamed Waal oo oday u ahaa beelaha iyo sayidkii waxay isku afgarteen
sayidku arrin buu codsaday iyagana arrin bay codsadeen arrintii codsadeen waxay ahayd ciidamada xabashida ah ee duulaanka joogtada ku haya ceelashoodii iyo degaamadoodii in maadaama idinku aad ciidan tihiin urursan aad naga celisaan sayidkuna laba arrin buu ku xiray saad u dhantihiin horta daraawiish noqdu yiri saad u dhantihiin idinka iyo caruurtiina iyo xoolihiina iyo taasi waa qodobka labaad 72 qori oo ay ku heleen dagaaladii xabashida la galeen sayidku uu la socday informationkaas igu soo wareejiya buu yiri 72 qorina waa ku wareejiyeen daraawishna waa noqdeen cabdi maxamed waal markaas wuxuu guursaday toox yar cabdillah xasan oo ah sayid maxamed walaashiis halka xidid baa ka dhacay si fiican baa la isku qaatay guurka siyaasadda ah sayidku aad buu ugu dheereeyay waana wax sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka socota shantii bishii maarso 1900 shantii bishii maarso dagaal baa wuxuu ka dhacay ceel jigjiga ku yaal dagaalkii ugu horeeyay oo ay daraawiish gashay buu ahaa dagaalkaasi waxaa ciidan xabashiya oo meesha soo degay ya ciidankii daraawiishta ay ku baxeen adigu xabad baa caloosha la isageliyay natiijadii dagaalkaasi wuxuu noqday in laga dilay xabashidii 230 qoryahoodiina la qaatay daraawiishtiina 170 baa ka dhimatay dagaalkaasi markuu dhacay Minilik waraaq dheer buu u diray dawladihii reer Yurub uu leeyahay Axmed Gurey kale baa dhashay dagaankii ka dhashay ninkan laga hortago aad buu maaragtay u baqay marka waxaa dhacday iyadoo daraawiish iyo maxamed zubeer ay isqaateen baa sayidkii hadal ka dhacay hadalkaas kalimadu waa cajiib kalimadu diinta islaamka hadalka afkaaga ka soo baxaya aad uga taxadar baa la yiri waayo hal kalimadu aad dhahdid baa islaamnimada dhanka saaraysa hal kalimadu aad dhahdidna islaamnimaday kugu daraysa hal kalimadu aad dhahdid cadaab bay ku horseedaysaa كلمات أدهديد أو إلهي رالك النقدينا جنة ماشى وسريسات كتجيسا واحد عينين ليرا هذا شدة دبر جلع شدة دبر جلع ومحمد زبيرة أيا حجوبي دم بقال قصو أوجي رنتي بوقا وجامعكم وسنقرين لكن ما قعيب وحسين شدة والد لي markii lagu dilay xerada dhexdeedii ayaa habeen meel duduna agteeda sayidkii iyo rag jifidiisii oo sheekaysanaya wuxuu yiri waxa jiray nin la dhaho Xasan Jijiile oo bahgariya odayaha oo Maxamed Zubeyrku ay horay u dileen sayidku marka hadal buu soo tuuro wuxuu yiri warshida dhabar jilay مو أرجلا حسن جيجيله شدة دبر جله إن كان هدا عند اللي معناها إن كيرير كنا جا قبين مو أرجلا وحموده يجي وحلا فريو دم بهجري إنه يجين هذا الكواب بحي مرك نين رير كهم بالفديه هذا الكواب بحي وحو جاري رير كي محمد زبيرها قبيل كنا وافدنا في النقاد حموية سبحان الله يعني قفكو تابته nin waxa la sheegay dagaalada Kismaayo ka dhacay oo isagoo la daaweynayo yiri war reer hebel ma adkaadeen naftii baa kaga dhacay war shahaado isagoo lahaay war reer hebel ma adkaadeen naftii baa kaga dhacay marka halkaas waxa ka dhacay wanaagii la isku qaatay waa istaagay nimankii reerka ka dhashay waxay dhaheen hadduu sheekhiiba saan yahay alloora ninkan maaha nin sax ah waxa lagu tashaday in la dilo waayo shida dhabar jile uma dhiman inuu xujoobay aanu u dhintay taasaa soo baxday aanaduna waa khatar aan Lewis oo ka shaqeynaya wuxuu yiri dhaqanka Soomaalida pastoral democracy dimuqraadiyadii reer guuraaga buu aad u qurux badan weey kaana dhalinyarada waa ku waaninaya inay raadiyaan oo fiiriyaan reer miyigeena culture-kooda dhaqan
برلمانada wadamada Yurub kuma dhaqmaan dhaqankii geedka hoostiisa markaad fiiriso dimuqraadiyadda Soomaalida reer guuraaga ay lahayd aanada marka waxa geedka loo fariisto godob weeyir godobtii buu kala qaadqaadaya gaf qadaf iyo gaf iyo ihaano saddexdaas u kala qaad qadafku Soomaalidu waa iska cafisaa walaalow iga raali ah oo baa ku filan qofkii soo hayda gafka la iska ma cafiyo waa in la fariistaa hawada waa qadafkii weyn in la fariisto la kala xal qaato ihaanada dhiig baa daato waxaad arkaysaa buu yiri marka godob dadkii kala galay dad aan ahayn ay u dhimanayaan oo isu leynaya waxaad arkaysaa godob xilligii la kala galay xilli aan ahayn 50 sano ka soo wareegatay jiilashii godobta kala galay waa dhinteen jiilal kale oo waa dambe yimid baa isu leynay marka aanay u arkeen arrintii sidaa darteed waxay qorsheeyeen afgambigii la magac baxay Gurdumo waa tashadeen waxay yiraahdeen sayidkaynu u tagno aynu dhahno sayidi saad u timid dabaalde kumaanu dhigin maalin baanu shir weyn qabanaynaa qurux badan reerka sharafkiisa iyo hooshaarkiisa iyo quruxdiisa yaanu dibadda soo dhigaynaa dabaaldega isaga inaad maaragtay damaashaadka daawatid baanu rabnaa markuu yeelana dee raggeennii oo hubkii wada haysto soo wada baxay naga fakan maayo waxa weeye isaga iyo kooxda la socota meeshaasaan ku helayna sidii baa sayidka loo sheegay waayuu yiri maalintii dabaaldega dhici lahaa markuu gurigiisa ka soo baxay isagoo la socda odayaashii kooxdiisa ahayd baa waxa nin baa wuxuu arkay nin adeerkiisa oo sheekada aanan loo sheegin warmooga oo sayidkii garab socda lan waxa ag fadhiyo dhan in la dilaa lagu heshiiyay intuu orday oo raggii dhex maray buu wuxuu yiri adeer ka soo bax meesha sayidka waa la dilayaa tartiib buu ugu sheegay markuu wadaadkii maqlay hadalkii hortiisiina uu arkay ciidankii oo diyaar ah wuxuu fahmay in maaragtay arrintan arrin soo dhamaatay ay tahay markiiba sayidkii uu gacanta qabtay wuxuu yiri meesha shirqool baa ka jiray inaga cili markay saa u laabteen baa xabadii bilaabatay daraawiishtii iyo raggii kale oo diyaarka ahaa dhacdadaas meesha Gurdumo la dhaho ka dhacay waxa la yiraahdaa ninka shirka fashiliyay dhuux warsame baa la dhahaa horta ninka sayidka ka warbixiyay Xuseen Xirsi Dalaal buu u sheegay oo Maxamed Zubayr waa shirka intuusan shirqoolka dhicin lagu heshiiyay kadib shirqoolkii baa lagu xisiyay Maxamed Xuseen Geedi baa la dhahaa ninka adeerkiisa la hadlaya ninkuu la hadlayna Cabdi Garaad Yuusuf baa la dhahaa ninka sayidka dhinac socday oo la hadlay adigu markaa waxaa dhacday in sayidkii uu ka badbaaday shilkii laakiin rag qiimi badan yaa meeshii uga dhintay daraawiishtu cudud bay ahaayeen dad iska beelaho meel degan ka xoog badnay nimankii iyaga aad baa dib loogu geystay waana ay qaxeen markay qaxeen oo xoolahoodii la dhaco dib weyn loo geystay waxay yiraahdeen dibadday ku tashadeen aynu la heshiino daraawiishtii ilaa hal kale ma jireen 32 nin bay soo direen uu ka mid yahay Cabdi Maxamed Waal ninkii sayidka xididka la ahaa 32 nin sayidkii bay u yimaadeen waxay dhaheen aan wada hadal loo heshiino marka daraawiishtii kama yeelin 32 nin hostage ahaan baa loo qabsaday waxa la yiri ergu u diray geel ku furta raggan nimankaana geel meeyan haysan oo waxay ahaayeen hadda waaba la ceyriyo geeloodii waa la dhacay adigu waxaa dhacday ragga iyaga duulaan bay markaas soo qalqaaliyeen ilaa waa meeshii u dambeysay maaragtay waxna ma haysatid nabadna lama ogola marka in la diro waa lagu khasbanaaday dagaal xoog lay soo qaadeen dagaalkii isaga ahaana waa la jabiyay rag badan baa laga laayay 32 ninna waa la dilay
gabay qurux badan baa jiro suugaan ahaan u qurux badan Soomaalidu markay qabiilku dhaqan yahay uqda kama qabaan laakiin markuu siyaasad yahay way marka shidada timaado nin wiil dhalin yar buu ahaa oo ka calacalaya wixii gurdumo ka dhacay guulaama roob sidii galal biyoobaday ama goodir dhalay ee ilmiha gorada loo saaray ama naag raggeedu ga-ay gocasho ooyeysa ama mawjad badda mawjadeedii kollay galab joogta wale xalayto goortii la leeday gowda iga yeedhay gargaydhaad ogeyd baan tabiyo goosankii go-aye godka laga kalama soo bixi karo way galaaf olole gunda gooyo sidii noogu dhacay gaasir baan nahay gabay aada u dheero qurux badan buu ka tirinayaa wiil dhalin yaro maxamed zubayr kadib markay shilkaas xooggala uu dhacay waxaa dhacday daraawiishtii dib bay haddana usoo guurtay waxay soo degtay dhiito meesha la dhaho oo laba geedi socoda gurdumo u jirta dabadeed waxay soo gashay dhulkan xuduudda uu ku yaal agagaarkiisa halkaasaa waxaa ka bilowday dagaaladii daraawiishta iyo ingiriiska u xoog badnaa intii ay la dirdhay taqriiban ingiriisku wada ahaa dagaalada iyaga haddaan dulmar ku samayno dagaalkii afbakayle 3 bishii Juun 1901 buu dhacay dagaalkii caana xarigle 4 bishii Juun 1901 buu dhacay faradidin 16 July 1902 buurihiile wuxuu dhacay 6 bishii August 1902 beerdhiga 4 bishii Abriil 1902 cagar weyne 1902 17 Abriil daratoole 22 Abriil 1902 yeed 30 bishii May 1902 jidbaale 1904 10 bishii January jeedale bishii Mars 11 1904 ilig daldala 4 bishii 12 bishii Afraad 1905 higlagab 1905 4 bishii Afraad 12 ruug ama dul madoobe waa dagaalka lagu dilay Koofil 9 bishii August 1905 berbera gubidii la gubay 3 bishii saddexaad 12 1917 shimbiris 17 bishii November 1917 Indo 18 bishii October 1917 Midaashi 23 bishii December 1919 Elder 25 bishii koowaad Baran 1 bishii labaad 1920 Taleex 1 bishii labaad 1920 bixin 4 bishii labaad 1920 Shiniile 18 bishii labaad 1920 dagaaladaas aan tiriyay waa kuwii waaweynaa waxaa jiray wax 100 dagaal gaaraya oo yar yar hada maalin kasta dagaal bay joogto u ahayd afbakayle waa dul mareynaa dhowr dagaal oo muhiim ah ciidanka ingiriiska oo ka qayb galay wuxuu ahaa 2600 120 fardoolaya 1200 fardoolaya 1500 ciidan luga daraawiishtu waxay ahaayeen daraawiishta 1200 fardoolaya iyo 1500 aha 2700 iyaguna waxay ahaayeen 2600 oo ka hub casriyeysan waxa dagaalka ka dhacay meesha la dhaho Baran ee ku taala ay u dhaxaysa laascaano dhanka hood ka xigta 3 bishii laxaad 1901 balliga la yiraahdo Haradhiig buu ka dhacay dagaalka isaga oo gelin socday dhimashadii daraawiishta waxay ahaayeen 70 20na dhaawac dhimashadii ciidankii ingiriiska u diriraya waxay ahaayeen 70 iyo 80 dhaawac
dhiig fara badan oo haradii ku daatay darteed baa dagaalka Afbakayla waxaa la dhahaa oo kale haradhiig. Haradii ilaa hadda haradhiig baa la dhahaa, magaceeda dagaalkaas bedelay. dagaalkii Faradhiddin labada qolaba way isku tijaabiyeen dagaalkii hore, maadaama dagaalkii hore la kulmay waxay ahayd markii ugu horeysay oo ringaha isla fuuleen. Ingiriiskana xoogga daraawiishtu bartay, daraawiishtuna waxay arkeen xoogga Ingiriiska. dabadeed dagaal kale oo Ingiriiska markiiba soo ololeeyay, waxaa u dhaxeeyay taqriiban bil iyo asbuuc. dooxo meel dooxo ah buu ka dhacay dagaalka Faradhiddin. daraawiishtu maadaama dhulka ay ka badiyeen nimankan ciidanka ah waxay yeeleen wadadii ay soo maraayeen dooxo lagu qiyaasay inay degayaan bay u sii galeen. dooxadu buura ku hareeraysan, afarta jiho, afar wadana waa leedahay, meel kale oo laga baxa male. ciidamadii Ingiriiska iyagoo socda ayay meeshii iyaga ahayd ku nasteen, meeshaasayna ku galeen iyagoo aan isdhahayn waa laydin weerarayaa. halkii iyada ahayd ayaa ciidankii dhaawac aad iyo aad u xun loogu geystay. dabadeed dagaalkii Beerdhiga, dagaaladaas Swayn nin la dhahaa dagaalkan dambe loo soo dhiibay oo Corneela. dagaalka isaga wuxuu ka dhacay balliga la dhaho Xodayo. dagaalkaasi maalin dhan buu socday. Beerdhiga taariikhdu dhacay waa 4 bishii Abriil 1902. maalin dhan buu socday, gabalkii baa la iskula dhacay ilaa habeenka bartamihiisii buu dagaalkaas socday. waxaa lagu dilay 150 nin oo Ingiriiskii ciidankiisii ahaa, 3 sarkaal oo Ingiriis ah ka mid ahaa, 32 waa laga dhaawacay. dagaalada iyaga markay dhaceen warkii meel kastuu gaaray daraawiishta iyo guulahoodii. sideedabana qofku markuu guulaysto qof kastaba uu jeclaanaya oo uu la xiriiraya oo wax ku darsuu leeyahay. meelo badan baa daraawiishtii marka looga yimid iyagoo loo hambalyaynayo, iyagoo la daraawiishoobayo. xilligaas waa xilliga suldaanka ciidagale reerkiisoo dhan ay daraawiish noqdeen. boqor Cismaan wuxuu u soo diray 40 rati oo rasaas iyo raashin iyo dhar ay saaran yihiin. waa hadiyada. hadiyada loo soo diray daraawiishta waxaa uga qiimo badnaa gabaygii la soo raaciyay. gabay uu tiriyay abwaanadii Soomaaliyeed gobolkaas u dhashay nin la yiraahdo Shanku Kibir, abwaan ahaa, boqor Cismaanna adeer u ahaa, afhayeenna u ahaa, baa gabay qurux badan soo raaciyay. gabaygiisii wuxuu yiri: ragga yimid risaalada la sido libinta rooreysa ee sabaradii roox ka yimid saaka lagu reeyay. roox deegaan mudug ku yaal Goldogob agteeda. ee sabaradii roox ka yimid saaka lagu reeyay, reer guuray reernagi qalbigu waa iska raacay. nimanka kufriga riixayaan ahay rafiiqoode, ragcadaha aan tukado iyo sunnada faralka aan raacshay, wardigaan rukumay iyo tusbaxa raatubka aan haysto, hortii baan rabbigay tuugi jiray inuu rakeeyaay. saakana in gaaladii la rogay raylkii noo yimi, ruugga ha dhigtee waan la rabay riiqashiya ceebe. qalbiguna rakaal suul geliyo waa ruxanayaaye, anigaa ka raagaya raggii tegay ku reereeye, sayid maxamed rugta uu fadhiyo rugihii loo jeedo. gabayga quruxda badan baa la socday hadiyadii boqorka uu diray. nimankii iyaga ahaa daraawiishtii waxay ka codsadeen inay bil iyo ziyaado la fadhiyaan, ayan si degdega u laaban. bishii iyo ziyaadadii ay fadhiyeen oo la casumayay oo la sheekaysanayay waxaa ka dhashay codsi ah in ina boqor Cismaan sayidka loo weydiiyo raggan socda. Soomaalidana sida dhaqanku ahaa gabadha adeeradeed iyo ilma adeerteed baa la weydiin jiray. waxa kan maanta odaga tooska loogu tagaayo gabadhaadii iyo gabdhahan inta laabka lala galo abbaay ma is aroosna waxa kama qabo laba bari kadib ma isfuraa caadi waaye ya dhaqan adag baa jiray. waxa weeye gabadhu qiimay leh, gabadhu sidii ukuntii camal ya
ما هباش أي كذا لا تكليه سومالي أردن بيكونوا واحد دعوا واحد جري حتى قبل هرت واحد فرين لده لما أقول قبل مضح بنان ومل علا التاجنا لما أقول دعوا حميدة يأدب درده يوسخده واحد كينية ومجتمع تفكك كله مجتمع عمرك تفكك كله ودبات قبل مركي هنا قاده ولا جور سنجري هدي لقد انتو ولا الدمالية قف ايان ربنا لقو ما خص بيجر لغن كعادة الرسمي كاسوها ننكي قبر فرصارة حيلا قبع لديه جري حيلا قبع مقعاس هذا لما استعمار حيلا قبع قولياشا وضياشا اي فريستان لقو ما يريجري ورنقد دايا كاسوها حيلا قبع يا اسكدف إن فرحهم أيوه قبر ميل سعوته ماركتي لقوا أدب درود اسكبد داي نبى وحي قشي كي مساعد في الشيء على السوفي سوداتكو باباي مساعد في الشيء على السوفي أو صلاة مغرب لو يستاهل واشي كذا عليه صلاة مغرب لو يستاهل ولا أقيمي الشيخ أنتو دهي صفقة النصبة يا مساعد كديني عيسي قبر لقوا فرحهم هنا يا دواضي dhawaaqeedii waa la wada maqlaya ninba wuxuu yiri war gabadha aynu u heelino mid baa soo boodo safka hore taagan wuxuu yiri war yaa ma la qabiil baata subhanallah hadda ilaah buu hor taagan yahay salaad buu ninkaas tukanaya yani fahamkiisu u baaba'ay oo gabadha inay isaga qabiilkiisa tahay muxuu ka ogyahay وقبر سؤال يدور دواقيس مركب قبله وحي هاي وح قيمة له ولا قيمة جري قيمة للسنجري إن المعذرت يا أذير رضيت لو يديه شرف بي قبر دواه ننكا حمينة يوح الدريمة يا بريتو إنه إهلادي أردن حمينة سيادرت ولا قحش شون جري إن قبر لحمينة راجعوا قاس مركو يري الناس وحليماي حدية حالنا كمرة عدد ناسو دبكوبا وحرمي حابا لما صار قبدا مكتدي كنتون هراد بالوغا قاتي مكتدي يونس ناسو دبكوبا وحرمي حابا لما صار قبدي بو وحو كعيبين inay maaragtay xoogaa dherigi kulliidad lama rabo gabadhu karaama iyo sharaf bay leh dadku reer miyigu ah laakiin fidrullah fidrada wanaagsan waa aqoon oo dhan qofka fidrada wanaagsan leh aqoon ka maqna khalaqal insaanu allamahu albayan abuurka iyo aqoonta waa wada socdaan eeyda iyo dameeraha iyo daayarta wax la baraa dad wax lama baro bani aadanku aqoon oo dhan waa wata markuu dhasho wata hal ku dar cunuga iskuulka jooga ee la baraa hadaadan u sheegin waa min albadihiyat inuu fahmo hal iyo hal inay labata خلق الإنسان ثم لما دهن والعطف لما راعين خلق الإنسان علمه البيان وكمبال باكيت إسلا السعودو أبوركي يا قونتي قبر بيويدستين مركا يشاق دراويشتي مدح دي سيد كي ويديين إنا بقرة سيدا عاددو أهيدنا الماديرتا يا أديرada gabdhaha waa bixin jireen awood bay u lahaayeen iyagoo aabihii la tashan inay bixiyaan way bixiyeen gabadhii markay laabanayeen waxaan filayaa inay 9 halaadahay oo gabaad ahaan u siiyay sayidka ragii maaragtay gabadha la siiyay ehelka la ahaa geelaas tirada badan oo la siiyay waxa ka qurux badnaa hadana gabaygii loo sii dhibay maanta wax gabay nagu ma jira wax walba waa ka xaalufnay wax walba waa ka xaalufnay gabaygaasi wuxuu ahaa wax yar baan idinka soo guuriyay socdaalada tan joogow baraad socod damcaysaane safar yahow salaama ee haddaad saaka naga guurto saagootigii iyo hadday sooryo idin raacdo saraar yeelan meel siman bannaan suudi iyo guure jidku waa sursuure hadduu eebbe idin saabsho
sabadii haddii waxaad u dhici laba sideedaade sabadii xeebeed waxaad u dhici laba sideedaad meeshay joogaan iyo dhulkii xeebta ay ka yimaadeen hadday idin salaamaan kuwii sahanka dhowraayay war haddii lagaa sugo adoo daal la socon waayey sunne maaha ee xaajadayay idinka seeraarin abtiyaal sidaan idin fariyo sawd yar naga geeya salaxa eregoy maalintay samadu gaadootay sumaciyo jigraha maalintay saanadu isdhaaftay saraakiisha maantuu tukuhu saabka kaga joogay oo suuniyaalow kufrigu baqaha siigeeyey 3 aliflayaashii aan gudnayn sida tay naartii iyo tagoo seediyaal kaga warrama saaxilka iyo xeebta gabayga quruxda gabay aad u dheer weeye buugga oo jaamac baad ka helaysaa waxaa xigay duulaankii afaraad ingiriisku markaan wuxuu ku fashilmay wixii takhdiid dagaal ahaa oo horay u dejiyay cunsurka Soomaaliga oo san aqoon fiican u lahayn deegaanka oo san aqoon fiican u lahayn waxyaabo badan baa isbiirsaday daraawiishtuna waxay ku dirirayaan hubka ay ka furtaan dagaal kasta ay galaan hub bay helayaan ilaa hubkii waa ka mamnuuc oo maaragtay heshiiskii Berlin baa maaragtay shaqeynaya marka waxaa dhacday ciidan tayo iyo xoog isku darsaday in la dhiso bay noqotay waxay noqotay khatarta ay soo wadaan daraawiish in aad loo dareensaday wixii aad loo dareensaday marka waa in aad loola dirdhaa 3 ciidan in lagu kiciyo bay noqotay ciidan inay cadan ka yimaadaan oo berbere ka soo degaan oo hubkoodii iyo tayadoodii iyo u dhan yahay ciidan inay ka yimaadaan Hindiya oo hobyo ka soo degaan iyo ciidan galbeedka ka yimaada oo Menelik u soo diro 3 ciidan in 3 abur la isu geliyo ciidanka hobyo ka soo degaya inay koonfur ka soo galaan ciidanka berberena waqooyi ciidanka Menelikna dhanka galbeedka okay hobyo Sultan Ali Yusuf baa jooga ingiriiskii talyaanigii buu la xiriiray wuxuu yiri suldaanka la hadal in ciidan halka laga soo dejiyo Sultan Ali waa uu ogolaaday ciidankii inuu soo dego laakiin goordan buu aad uga gadooday markii la arkay gadoodkiisii waxa dhacday in la dhaho qunsulkii cadan fadhiya ingiriiska iyo ninkii fadhiyay xamar ee talyaaniga yaa markab weyn oo badda yimid kugu sugaya oo ku raba doon baa lagu qaaday isaga iyo wiilkiisii markabkii baa la saaray khiyaana yahayd waa la tagay waxaa lagu xiray jasiirad ku taal Eritrea waxay isku meel ku xiraan jireen Uraabi Ahmed al-Uraabi thawradii Masar 1800 aakhirkeedii runtii inaan xusnaan rabnay orod bay nagu dhaftay tawradaas ninkii odaga ka ahaa oo ingiriisku soo qabtay bay meel ku wada xiraan jireen markii suldaankii la qaaday de nidaamkii khalal weyn baa ku yimid waa caadiyo khalalka isaga uu ka faa'iideystay ingiriiskii ciidamada uu soo dejiyay aad bay u badnaayeen waxay ahaayeen 2296 sida uu qoray arkiifkii ingiriiska ciidankan hobyo ka soo degay waxay isugu jireen buu yiri koonfur Afrika bariga Afrika Kenya Hindi berbera ciidan laga keenay ciidan Siikh ah Suudaan ciidan laga keenay iyo ciidan iyagana laga keenay koonfur Central Africa qoraalkaas sagana waxaad ka helaysaan isagoo ingiriisa iyo isagoo Soomaaliya oo jaamac uu noo turjumay buugiisii taariikhda daraawiishta waana imanayaa oo jaamac saan rajeynaya insha Allah
berberana waxaa ka soo baxay 1745 nin oo ciidan ah waxaa ka mid ahaa ciidan pioneer ah horseedayaal 370 300 bambay laga keenay 10 takhaatiira 58 injineer ah waxaas isugu jireen adigoo ciidan furuucdiisa oo dhan wata minilagina waa aqbalay isagana ciidan buu soo kaxeeyay hobyo marka waxaa ka dhacday in la bililqaysto wixii hantitil ciidankaas lagu sii daayay waa rarteen waa soo baxeen ciidanka waxa watay General Meaning waxaa la soo dardaarmay Marshal Earl Roberts abaanduulihii ciidamada boqortooyada Ingiriiska dambaalkii uu soo diray waxaad ka helaysaan isagana buuga isagoo qoran waxaa ka mid ahaa waxaan kuu sheegayaa buu yiri ujeedada weerarkan inuu yahay in shiikha laga eriyo deegaanka biyaha leh ee gobolka Mudug isla markaasna ka taxadar inuusan koonfur u cararin sababtoo ah koonfur u cararo wuxuu gaarayaa dhulka Shabeelle taasina waxay cabsi ku abuuraysaa Talyaaniga maamulka Talyaaniga halka ka jira arrintaasna arrin sahlan maaha waayo cabsidaasi waxay gaaraysaa dhulka Jubba ee bariga Afrika oo Ingiriiska uu ka taliyo waa laba safxad iyo barway qoraalka intaas aan nuxur ku yahay General Meaning dardaaranka soo qaba ayuu soo baxay ciidankii hobyo kala soo degay wuxuu yimid balli galaadi balli galdo markay halka yimaadeen nin bay qabteen ceel dhaansanaya ninku ficlan darwiish buu ahaa waxay dhaheen maxaa tahay anigu dadka deegaankan ahay buu way wareysteen darwiish nooga waran wax wara kama hayo way xireen markay xireen inkastoo la ilaalinayay habeen barkii uu soo fakaday xeradii buu yimid warkii oo buuxa buu siiyay marka darwiishtu waxyaabaha guusheeda ka qayb qaadanayay aad bay xagga sahmada maaragtay ugu dheereeyeen oo dhaqdhaqaaqa ciidanka Ingiriiska markasta waa ka warqabeen xerada aanu ka soo duulay Douglas Jordan baa qoray waxaa joogay Ingiriis badan wuxuu yiri dad badan ciidan badan oo Ingiriisku uu xukumo waxaa ka mid ah Ingiriis Koonfur Afrika Hindi oo wixii aan soo sheegay waxay la dirirayaan cadow dhulka meeraysanaya ka bilow Gardafuuy ilaa iyo dhul baraha meesha u mara daraawiishtu ka waday على حال halkaas soo degeen daraawiishtiina way ka warqabeen laba ciidan oo iska warhaya daraawiishtiina way ku soo sikatay dagaal baa qabsaday dagaalkaasi cagar weyne baa la dhahaa wuxuu dhacay bishii afraad 3deedii Abriil 3deedii 1906 ما يكون سؤال بقولي صدق دي لحية طبعاً كي أبريل عكس بانو آخري لحية طبعاً كي أبريل كل سؤال بقولي صدق دي دجال كوحو بلاوضي دراويش تاب بلاوضي صلاة الصبح مركي تكدين يكوكا لهين halkaas waxa ka gaaray Ingiriiski waa iska dul marayna dagaaladii hore dhaawac aanan gaarin baa gaaray waxa laga dilay 187 askari saraakiil xigeenno waxa kamid ahaa 9 sarkaal oo Ingiriis ah dhaawac aad u xanuun badan ayaa ka soo gaaray halka ay sheegeen Ingiriiski ciidamadiisina waa jabeen hub fara badanna waa laga dhacay iyo hanti ay wateen nin la dhaho Qaaje Maxamed Ciise oo la socday ciidamadii Ingiriiska khasaarihii dhacay markuu arkay Ilaahay u mahad celinaya inuu dagaalkii ka badbaaday yaa suugaan qurux badan isagana tiriyay wuxuu yiri raxan raadkii iyo hawsha kama raali ahayna rag baas bay damciyay rabbi weyla iraaday geel baan raadi lahaa waxba yaan ramadiisiyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa ka xayne kol haddaan rubadaydi reerihii nabadgeeyay
rabbi yowma hadda isagoo sii wada wuxuu yidhi hindigaa ridi doona suudaantaa rogi doonta yamyamkaan ranjijiirsan ragcad baynu ogeyno reedi baynu ahayn reedi waa af ingiriis ruqa weeye fardahooda rasaastooda ma fiicna rabbigay talin maayo rugtoodaynu gelaynaa ninba reer ha kaxaysto sow wixiina horrooriyo raggeenii qoranaysiyo rogay gaalada maaha adigoo sugaantaa quruxda badan iyadana gabayga waxaa ka helaysaan kitaabka oo jaamaca waxaa xigay daratoole dagaalkii ka dhacay suweyn baa marakan hogaaminaya daratoole kuwii hobyo kasoo degay dhaawicii ku dhacay waa aragnay kuwii berbera ka soo baxay bay daraawiishtii marka ka hortageen ilaa awal halaysu qabtay hadda qolo walba meel gaaray ka heshay tacticada dagaalkii ka mid tahay alxarbu khudca 15 bishii afraad 1902 ayay buuhoodle ka soo baxeen ciidankaas waxay soo degeen balliga laho haraxagare geeljirtu warka Soomaalidu aad buu ugu faafa aad buu u dheereeyaa ragga geeljirtaana warka qaada balliga korkiisa waxay ka heleen khabarkii khasaarihii ku dhacay ciidankoodii haziimadii xun oo ka soo gaadhay iyo guushii ay daraawiishtu heleen ciidan kii wuxuu noqday ciidan niyad jabsanna dagaal waa adag tahay si ku guuleystaan 22 bishii afraad waxa 22 bishii afraad duhurka intuusan gaarin 11 meelahaas daraawiishtu waxay ku tala galeen horta balligii way ka soo fogaadeen inteeyan balli kale gaarin oo biyo ah bay ku tala galeen inay dhexda ka ugaartaan tan kale waxay ku tala galeen maadaama dadkan dad koyta ay u badan yihiin oo cimilada Soomaalida ay noqon xilli kulul inay dagaalkoodii ku aadiyaan ficlan waana ay ku guuleysteen qabla duhur bay dagaal ku qaadeen qorshahaasi waa ay ku guuleysteen nin Ingiriis wuxuu ka sheekeeyay markay dagaalkii la isdhex galo hilfaha la isu qaadayo ayaa nin sarkaal oo Captain Bruce oo dhaawacmay yaa wuxuu u yeeray nin siikha ninka Ingiriiska sheekeynaya wuxuu u yeeray kuwan siikha madaxa dubta nin kamid ah warati soo qaba buu yiri dagaalkii waa socdaa wala isku dhex jira warati soo qabaan sarkaalka badbaadinay ratigii buu soo qabtay hadda masiikh baa rati yaqaan xabad baa agtoodii ka yeelay ratigii waa fakaday marka ratigii markuu fakaday xabad kale ninkii ku dhacday Bruce sidii buu ku dhintay nacas buu ku tilmaamay marka ninka ka sheekeeyay ninka siikha nacaskii buu ratigii buu celin kari waayay sidii buu ku dhintay kabtankii dagaaladaasi markay dhaceen boqor Cismaan iyo sayidkii waxay isdhaafsadeen dhambaalada iyaga waxaa kamid ah dhambaal oo boqor Cismaan u soo diray sayidka oo uu leeyahay u soo guur deegaanka iyaga saddex sababna ugu soo guur sababi waxa weeye inaanu leenahay dhul buura ah oo gabaad ku noqda buuruhu waa istiraatiiji nin buur galay lagama adkaado sabab labaad waxaanu leenahay bad xeeba oo doonyaha maaragtay ganacsiga ay kaaga shaqeeyaan waxaan kaloo leenahay buu yiri biyo badan buurahaas waa wada ilo biyo badan oo xoolaha iyo ciidankaba kaaga cabaan dhambaalkii uu soo diray boqor Cismaan dhexda laga helay Ingiriiskii bay gaadhay Ingiriiska markiiba Talyaanigii buu la hadlay Talyaanigii wuxuu yiri la hadal in daraawiishtu ayanu guurin dhulkaas boqor Cismaan waa la soo hadlay waxa la yiri isjir macnaha doonyahaga dhanna waa fariisinayna magaaladana waa duqeynayna Talyaaniga markab weyn magaciisa ma xasuusto kulay waad helaysaan markabka isaga
حتى إنترنت تاريخ داس قرآن لا أنك دياري وكجران مركب كمجلس هو كجران مركب كي حمر القدقي إسماعيل القدقي مركب وآخر كان مركب كدقين دونه ويدقموين كبري دقنين بالله صدري وحال يستوب جري مركبة سيدكو أولي سو جورين بوراق كلا أدري بور عثمان وراق ذي كلا وحو يري مش هذا يجو وحبيان هي ما ولا يهنددي توران سكو دفاع عنها معي سيد كجابي كان جين ليدا مركب وترين أيه ولي جاي واحد نقبي إنه سو جوري ومركب سو جورو بري وتجي دجال لجو قاضي وجامع عمر عيسى وحو يري سيد كجابي جاس جين ليدا وصور وعبريه حرديس كمان صبحين لكن هدو جورو وحي كل علها سجوا جوري بكرة أنيقو جندي حجالية أنا جوجا جوري جيجا أنيقو جماعة قالوا دين تجبينايا أنيقو ديجا جلالينك قبل قروح بدن ويا قبل قرنتي السجان آدم هدام بقر جوابي قائما على ما جحين جوق وحانوسو يريد دوغاق جلبوتيناي وتشبيه قروح بدن ويا لكن الجامعة وحويري شكل الصدا ومدعين تعبير ويا السجانات إلهي هرتينا أنا اللي ويدينا يا كلمة درسوا يقدر إلهي هرتي وحو يشغي نن وشكذا نقشي كي رجع تاريخ لنا قرجرية نن كاسا وحو فافيي بير إن دراوي شيء يقولي لكن أنكم أدهم بيري من أيام بيري تاريخ راسنا نن أو جامع كوين أو اللي ويدينا يا مجرى سكستبه هود عدد سيدكي وحو كوها كذي ماشي سي إنجليزكي مركب وحو بلابي دجال عصب حدنا إنه أبابله تضرب بقول أو عيدان مركن إنه مدافع استعماله بوجستي تضرب بقول أو عيدان كمدافع ده بوهندية ككيني يصدح بقول أو ركوبلية عيدان كاسي أو كندن حتى فرد هذه أورتي يبقليه يكودوا لهاين هندية ككيني واوتين waxaa weheliyay 550 ciidanka loo King African Rifles iyo 100 waardiya iyo ciidan iyagana tiro oo Soomaaliya daraawiishtii marka waxay iyagana khabarkii waa ay heleen si fiican bay isu diyaariyeen dagaalkan isaga oo jidbaal la magac baxay wuxuu dhacay bilowgii bishii January 1903 ودجالكي أهرية ودراويش تصيدا حم لو الرقي سحم بالو الرقي يادنا سيد كجبي دربو كتري بوقتها كهليسان جبي قاعد الساعة دجالك الساعة سبقت جيستي جبك دراويش توحيات نيل نرده عوك جبانه بفكرة سيء هندسة هذه قفوا أو يهي إذن كم يهرى لها التاريخ ويا عوك جبانه إنجليز كيبو هندسي دراويش تاكتيكا دودي بو يقين وحو يري نمان كان دي كل نوساق ugu soo yaacay ya hub fiican lama haysan aakhirkii waa ku dardaray wax kasta ka dil waa ku dardaray wuxuu yiri haloo baqa cararo inta dagaal la galo markay soo jabaan haloo baqa cararo hubkii wax gumaadayna meel hal lagu qarsado meel gadaal ah la dhigto runtii cawka jabana qorshihiisi si fiican buu hirgalay gabaygaasna gabayada runtii sugaanta macaan leh uu kamid yahay daraawiishtu 600 baa lagu qiyaasaa inta laga dilay oo waliba ragoodii tafka ahaa waxay ku dhaanto tuman jireen allow cawka jabano joof gaalo allow jabi adiga jaabka على الدبيلو عذاب أركتي عقابنا مكود دمبيس أكو عيارته مجرى دبادات واحد عدي ما دام اللي يسمر وايي إنجليز كينا واركين من كان أود ده دراويش تينا ده واسكدت متدا أو أود رسمي ماشى كومين هين ويضد أن تأكل الله هين رمية حاسسية عيال وتواسك جرانيسا هالشيس بعبور مي heshiiska isaga waxa saldhigu ahaa Abdulle Shixiri nin la dhaho
oo xaaji cabdulla shixiri nin daraawiishta ku kalsoontuu ahaa oo socda cadan taga ergay ahaan daraawiishta ka wargeeya xagga khabarka ka keena waxay is arkeen qunsulkii talyaaniga ee cadan fadhiyay qunsulkii bay wada hadleen qunsulkiiba wuxuu carab laalaadiyay in nabad laga dhexrido daraawiishta iyo talyaaniga warkii buu qaaday wuxuu u geeyay darwiishkii adigu 2 jeer buu safar galay khabar la isla afsaday ugu dambeyntii waxa ay ku dambeysay in la soo raaciyo nin la dhaho Balati Beroni sarkaal talyaaniga doonyihii dagaalka ee talyaaniga buu cadan ka soo qaatay isaga iyo xaaji shixiri waxay yimaadeen meel xeebta ah xaaji shixiri baa soo degay saxiimad qaatay u tagay daraawiishtii dhowr jeer Balati ma soo degin dhowr jeer buu u kala war qaaday Balati iyo darwiishkii dabadeed waxay ku dhamaatay inuu ogolaado Sayid Maxamed delegation talyaaniga inay xarunta yimaadaan ninkii isaga waa uu laabtay kadib waxa lagu heshiiyay meesha lagu kulmaayo inay noqoto eyl dhanka waqooyi meel ka xigta xeeba buurana ku yaalin 15 bishii tobnaad afarteedii maya 15 bishii tobnaad 1904 ayaa doontii waxay ku soo doon weyn waxay timid xeebta ilig habeenkaas doontiisii buu seexday ninka markaan socda waxa la Pestalozza waa nin saraakiishii talyaaniga sare cadan fadhiya maalintii 16 ay bisha ahayd ayuu ka soo degay doontii isagoo ay la socdaan Saylo Sersal nin la dhaho talyaaniga iyo xaaji cabdulla shixiri Pestalozzi markuu yimid xaruntii horta waxaan arkayay buu yiri waa ninkii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee cadaana ee sayidka la kulma ugu horeeyay uguna dambeeyay ninka la kulmayana waa iska garanaysa kafantiisu horay u sii qaadanay cabsi badan baa jiday laakiin wuxuu ahaa nin isdhiirigeliyo wuxuu tilmaam ka bixiyay qaabkii wixii u muuqday buurihii rag baa saaraa buu yiri meel kasta ka muuqday rag boqolaal dhan baa meel walba iga muuqday oo dhar uniform cad qabo fardoolaya ma soo guurin kara hadda wixii uu cabiray daar weyn baa jiday buu yiri daartii markaan galay raggii khusuusiyiinta ahaa oo wada fardo fuula 8 nin oo ku jiro wadaadkiiba si special u labisnaa oo ragga ka dambeeya markaan albaabkii soo galay baa digri la isla qaaday 4 koone hal mar la isla jabinayo cabaar bay wadeen markuu digrigii dhamaaday baa waxa soo socday qayb adigu riwaayad qurux badan buu ka sheekeynaya wixii meesha uu kula kulmay ilaa sayidkii hor yimid isagoo faras saaran cabaar buu fiirinayay buu yiri uusan hadlin hadhow buu wuxuu yiri ma ogtahay inaad tahay ninkii ugu horeeyay ee reer Yurub ahaa oo xaruntayda yimaada haa buu yiri haddaba maxaad u socotay buu yiri wuxuu yiri nabad ma Ingiriis baad ka socotaa buu yiri ma yiri Ingiriiska wasa si gaar oo Ingiriiska uga didsana kuwan wuxuu arkay dad maato ah Ingiriiska daba taagan hada ficlan waana ahayd oo Ingiriiska talyaaniga waday marka wuxuu yiri maxaad u socotay marka nabad maxay tahay nabadda rabtay intaana nabadda ka hadlin adigu awood ma leedahay kalsooni ma kugu leeyihiin dawladda talyaaniga haa buu yiri nabadda rabtay maxay tahay deegaanka dhan inaan nabadayno nabaddaas oo dhex marta annaga oo talyaaniga idinka oo Ingiriisa boqor Cismaan iyo Kennedy okay adigu arintii yada ahayd heshiis baa ka soo baxay inta kuma dhamaan waa la rogrogay waxay ku dhamaatay in la heshiiyo markii la heshiiyay heshiisku iyaguna ujeedada kala hayeen daraawishana ujeedada kala hayeen oo jaamacad buu arintaas faala dheer uga bixinaya daraawishtu maadaama dagaalo badan ay gashay
in ay ka soo kabato dhaawacyadii faraha badnaa iyo culayskii oo soo gaaray xoolaha inay maaragtay u helaan daaq fardihii inay badsadaan sidaas oo kale ingiriiska talyaanigana qorshahooda mar walba kama tanaasuleyna waxay ahayd inay iyaga qudhooda waqti ay isu diyaariyaan helaan daraawiishtu inay rabtay inay waqti hesho ismaaciil mere gabaygiisa laga garanayaa waxaan ooda gooyi iyo daryare ururta xabaaba leylkii iyo aroortii waxaan daray urquuntaaba ingiriiska ee bahi ka go-ay waxaan ilaashaaba oo fahamaroon baan ka goyn aniyo aaray wuxuu tilmaamayaa marka nabadaas inay tahay fursad uu ka faa'iideysanayo kow intay nabadii jidhay dhowr sano markay socotay oo daraawiishtii xoogaa ay heshay maaragtay cudud waxaa bilaabatay marka daandaansi xagee buu ka yimid daraawiishtii horta waxaa jiray aan soo dhaafay suldaan maxamed cali shire suldaankii warsangeliga oo markii hore daraawiish ahaa darwiishkana ay xidideen gabar ka guursaday baa markaa dambe waa iskhilaafeen oo daraawiishtii buu ka baxay conflict xoog leh marka dhex yiil suldaanka warsangeli iyo daraawiishta dhulkii daaqsimaha ahaa ee uu warsangeligu degi jiray buu ku sikaday waraaq dacwada baa loo soo gudbiyay darwiishkii la leeyahay heshiiska kuma jirin inaad suldaan cali shire xuduudiisa aad ku soo xadgudubto sugaan qurux badan buu markaasna tiriyey oo qodobo dhowr ah oo kaga hadlayo dood waxaan u leeyahay sugaanta la dhaho weeye dood waxaan u leeyahay dumarka iyo caruuraha kuwii da-dii idinka weyneed hadday idin dulleeyeen dembi kamaana yaabina cunay idinka doorteen waa waxa maanta taagan duuyaa la dhaafsaday degtii aada gelayseen dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen deex intay qodeen bay ciid idinku duugeen dameerkuba ma yeeleen halkay tala ku daysteen dabkan aan shidaaya danihiinna weeyaan dariiqii rasuulka iyo dawga ha ka bayrina warsangeli kasii durug dacwad baan ka leeyahay mar hadday ku doortaan isku diirad maahine haddayba ku raaceen aniga shuqul kuma lihi daraawiish hadduu yahay sidee dac uga leexdaa haddayba dadkii daraawiish yihiin sidee dac uga leexdaa wardaarood ismaaciil doc miyaad wadaagtaan dadkan annagaaba isku qabiilu leeyahy xataa qabiiladii hoosu usii degaya xilligaasoo kalena qofku inuu sheegto qabiilku waxay la mid tahay markuu nebigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam anaa nebiyu laa kadib anaa ibnu cabdilmutalib awowihiis buu ku faanaya laakiin awowo looguma faano maata iyo ciyaal iyo caruur qof miskiin oo magan ku ah qof maaragtay haddii alla kuuroon yahay aada ka xoog badan tahay no in qabiil loogu faano qabiilka ku faan markaad position aada dadkii iyo dalkii iyo ummaddii iyo diintii aada ka difaacaysid ku faan qabiil wuxuu yidhi wardaarood ismaaciil doc miyaad wadaagtaan duriyadii adoogay miyaad igu duur xuli sowdeere iyo cowduraad adigu kama dhigin sow dukaamadoodii daarahaaga ma aada dhigan sow doonyahoodii dukhaan naara kama dhigin adigu sugaantaas buu tiriyey heshiiskii uu ku burinayo markay taasi dhacday waxaa dhacday dood ayaa ka furantay barlamaankii ingiriiska doodaasi waxay ahayd deegaankan wadaadka aynu u dayno wixii nin raga waa laga leexanaya ummaddii is urursata oo mowqif wada qaadata oo ilaahay tala saarsata ismaan yuusuf keenadiid muxuu yidhi tawakalidda eebbena tiir la cuskan weeye waa sugaantii leegada tawakalidda uu ku soo khatimayo gobannimo tukubo iyo tuugsi laguma gaaro haddaan rag isku tacadiyin tiginkeed ma aasmo horaa loo tijaabshayoo baryo kuma timaado haddaynaan istabaraysan rag waa tii isdilao oon qalabka lagu taagsan tumasho iyo ganacsiba oon tabaabulyada seegno waxba taransan mayno
tawakalida ee benatir la cuskan weeye taliyuhu isaga weeye tadbiirshaha adduunka taa'ib iyo cibaadiyo toobad baa danteenu tukashaduna waa faral taarig waa la caayay haddaynan ka tegin diinka rabbaa inagu toosane tuufali lahaa iyo tiisii la laaban dadku marka hadduu rabbi tala saarsado iyagana isku tashadaan oo humaaga iyo waxa aan la qaban karin aan la taaban karin caqiimka aan miro dhalka lahayn laga tago waxa weeye saasaa ummadaha kale idiin cizaynaya inoo cizaynaya barlamaankii ingiriiska oo boqortooyo aan qoraxda ka dhicin baa waxaa ka bilaabatay dooda wadaadka aan uga tagno meesha doodaasi waxay bilaabatay 1 bishii November 1909 dhulka xeebaha kaliya aan ku soo ururnay ficlan waana ay sameeyeen dhulkii marka ay maxmiyad ahaan u joogeen dadkii ku dhaqnaa hubbaysiiyaan waxay dhaheen iska difaaca wixii idin yimaada Allahumma magaalada Sheekh iyo Burco bay ku hareen oo markaas ay islahaayeen haydeen ahaato xuduud dadkii reer miyiga ahaa hubkii la siiyay iyaga isku la jeestay ninba ninku ka hub badnaa buu geeli ka dhacay guugaas waxaa loo yaqaanaa xaaraama cune waa gu taariikhiya waxaa marka dhacday qiso waxaa dhacday 600 oo daraawiisha oo ilig joogta baa waxay qaateen go'aan khusuusiyiintii aan la ogeyn khusuusiyiin 60 nin oo waxaa la dhahayay barlamaan oo kale ah sayidka markii dambe dawlad oo kale han dawladeed buu yeeshay barlamaan buu samaystay isaga oday ka ah gole siyaasadeed buu samaystay ka baxsan ciidamadii buu u kala sameeyay hadii alla kooran yahay jirarkiya si u kala qaybsanayeen qaab qabaa'il bay ahaayeen waxaad ka helaysaan buugga oo jaamac marxiisa iyadana 600 oo nin ilig bay fadhiyeen ilig waa ayl agteeda waxay yeeleen waa soo duuleen aynu geel soo dhacnay koonfur bay soo aadeen dhinaca hawd bay mareen waxay gaareen meesha la dhaho adiga dhulkii ingiriiska uu ka talinaya meel u dhaxaysa hargooga iyo deera fadle halkaas bay waxay ka soo dhaceen geel fara badan geelaasi waxaa la dhahaa daboolane geelaasi nabad bay waxay ku keensadeen meeshii xarunta ahayd ilig daraawiishtii aad bay ugu farxeen arintii iyada ahayd oo ay soo dhaweeyeen daraawiishtii marka daandaan sideyn mayso halkan geel bay ka dhaceen halkan dhulkii warsangeligay ku soo sikadeen wuxuu marka ingiriiska sameeyay khutad oo daraawiishta laf dhabarka kaga jabinay wuxuu qori ku qaadi waayay inuu siyaasad ku jabiyo arintaasi waxay ku biyo shubatay inqilaabkii Canjeel Talawa afgambigii Gurduma iyo afgambigii Canjeel Talawa labada afgambi iyo sayidku ka badbaaday 1908 iyo ingiriisku wuxuu kulmiyay culimadii saalixiyada ee berbera joogay wuxuu ka dhaadhiciyay ninkan inuu banaystay hantidii dadka dhiigii dadka oo sandiin meesha ku hayn talyaanigiina wuu gaarsiiyay sheekha saalixiyada berbera waxa madaxu ahaa nin la yiraahdo sheekh Ismaaciil sheekh Isxaaq kismaayana waxa fadhiyay sheekh Ali Nairobi oo isagana dariiqada saalixiyada koonfur oo dhan oday u ahaa labadii sheekh buu isku daray ma ku u diray labada sheekh inay ka warbixiyaan ninkan saalixiyada la inuu meesha waxba u san kooyay waxay u tageen sheekhi saalixiyada sheekhi bay la hadlaan sheekh Maxamed Saalax waxay ka dhaadhiciyeen sayidku inuu aad iyo aad u khaldan yahay inuu xoolihii muslimka banaystay inuu dhiigii muslimka banaystay in maaragtay ijaazadii lagala noqdo sheekhi waraaq buu soo qoray markaas horta sheekhi wuu rumaysan waayay hadalkii aad bay ugu adkaatay intuusan waraaq qorin waa rumaysan waayay adigu waxaa dhacday
xaaji maxamed shixiri oo darwiish ahaa ninkii ergeyga u kala warqaadi jiray ahaa yaa xagaldaac laga helay bani aadamku waa iska naaqus mar kasta isagii waa wuxuu istaagay position daraawiishtii cagsi ku ah taariikhdu ma qorin malaaluush baa la siiyey ma ra'yigiisii baa isbedelay ma oo jaamac kama faaleen arrintaas anigu waa isweydiiyey laakiin si kastaba ha noqotee ninkii wuxuu la mowqif noqday labadii sheekh oo berbera iyo kismaayo ka yimid sheekhii baa loo wada geeyey shixiri wuxuu ku markhaati furay labadaa nin waxay sheegayaan inay sax tahay sayidkuna uu aada u khaldamay saacadda inoo fiiriya maxaa dhiman maya waa haddii la gaaro waanu iska joojinaynaa shakadu waa shaka